Soomaaliyeed Somaliland waxaan caawaad ugu xumahay adigoo fanaanad qaran inaad caawa qabiil gaar ah aad soo tahay ubaxay berito leh hadii ilaahay dhaahdo waxaan kugu soo qori doonaa dhammaan website-yada Somaliland heesahaaga laga saari doonaa waanu ka soo horjeesan doonaa fanaanadii loo jeeyo magool waxay taageertay General Maxamed Caydiid waana laga soo jeestay waxna عافية سيدا صار لي من هذا الوقت إن شاء الله والكاس ورجينا إيش أجينا دقيقة شوي سوالك بح والله الهرت قف قاس سينا أتاكت وقلت قبل وقبل Soomaaliyeed oo fanaanada Allah dhowraan leenahay hana jirto ha joogto ta gabadha ana kaaga jawaabay tan kale oo ah qadiyadan gooni sutaaga sida uu yarkii hore uga hadlay hadaniyo wixii kaftana iyo wixii dooda waa goonideeda laakiin waxaan dhihi lahaa Somaliland xitaa madaxdeeda way og yihiin inay waxaan hadda isku sheegayaan inaysan run ahayn aysan sii jiri doonin wax la yiraahdo Somaliland iyo gooni sutaag oo ultimo Soomaaliland wada hoos tagi doona ugu dambeyntii Somaliland waa Soomaaliya markii aan waxba dadka yaan cadiifad dadka lagu beerin shacabka yaan cadiifad lagu beerin walaalayaal cunugi 20 sano jira ama 18 sano jiro reer Somaliland yaan laga dhaadhacsiinin waxaan jirin iyo waxaan jiri doon su'aasha aan aniga qaasatan horta fanaanad Soomaaliyeed ana fanaanad Soomaaliyeed waliba aaminsan calanka buluuga oo shanta xidig lahana kii dhageysanay kii iska kaytuuri lahay midda labaad aniga meesha aan soo gelinayo Soomaaliya qofka iga wadaniinsan inuu jiro ma u maleyn Soomaaliya waligeey mid taageeri doono inay qaybsanto ama laba noqoto haddana wajigaad iska caabeynaysan hadalkaad badinaysan ummadaad wax ilmo dhashay oo waxba ogeyn oo taariikhda hore la socon baad wax ku beeraysan laakiin nefa waligeed Soomaaliya laba noqon mayso waligeed yaa حسن حتى وحول باي هرجيسة قادنيس أصحيح السيا تاسواد أكتين محامرك هجا مرنك ضد سوماليا ومامل قبلات كسوماليا ما مامل قبلات كشرات أفكي سو حكي فيصل علي ورابه ولا ريالو معاني أنا نسمع عند السوماليات وهل ودن ولا دق وهل أفل أو إسرائيل وسوعنا بلور عليه كان سؤالي وفكر كاي مالي لان اعتراف بيستا غورانو بحني فاطمه waxay sheegaysaa waxa weeye aan ka mid weeye Fatima Somaliland diyaar waxaan u nahay ina adeero de way telefoonka markaaga qaado please soo salaag aan wax leeyahay ma jirto waxa weeye waxaan nala joogaa in Saleeman xagla toosiye waxaan nala joogaa xaabsade waxaan joogaa Fuad Mariyale gabadha waxaan leeyahay u kaadi balana aamus balan adiga ay dhageyso sool sanaag iyo cayn ma jirto hadaatir wax Somaliland iyo Hargeysa la yiraahdana ma jirto biliis hadalka aamus aan hadalka dhamaysto markaaga qaado ay rahayn xal ugu meeshiinay walaal doortay ma soconayso هذه walaalkay calanka Soomaaliya horta cunuga 22 jirka waa waxa uu u dhashay oo macnaha dhulkiisii calankiisii waaye haduu yaqaan haduusan aqoon mid kale to kartoonka magaalada Hargeysa bartamaheeda suran oo dabada ugu yaala asoo buluug oo aniga waxa la hadlaa sidii odayga loo rajay xoosh ee ka hadlay university fee walaal xoosh sheegtay diyaaradda oo kaadi haddaad ku sheegtay diyaaradda soo oo maya daaruka daahir waxaan ma leeyahay safarno hadii uu ku sheegay ninkan diyaaradda saaran khayriyada Somaliland kartoon ma dhigay adigu ma taabatay walaalo aniga waan tagay adigu ma taabatay waan qaariya waan ana waliba hoosteeda taagnaaba ar walaalo aad maadsan Hargeysa maad arag waxaan leeyahay walaalahay maantana Soomaaliyatiin birina Soomaaliyatiin wadna ahaan warmani wariya waaninka Cabdilaahi iyo Soomaaliya أنا ولا الواحد أميزن تهوى جوني ذي لكن أجو مد لما كابتن كأما عبد الله هيت الباص شيء يعني ما شيء ويتين كان كجري ما فهمتين marka waxa meesha hadda Soomaaliland walba ay adduunka ka rabto Soomaaliya u soo saxiixda madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha saxiixiisa ay ku qaataan walaalayaal marka waxa jeceshiin inaad dadka iska nacdaan oo iska dhareecaysaan oo iska nacdaan waayo wax tagay Soomaali soo wada marta aad sheegtaan miyaad rabtaan ma soo wax kale anu fanaanad Soomaaliyeed qaranka calanka
سومالي لان ميانا هي شلي سوماليا عاونimada u fiiri walaal lug aan ahayn laakiin waxa meesha diimeena aniga bas anigoo idaacadaha dhan la socdo oon u jeed xasan sheekh inuu wax walba u saxiixayo turkiga wasiirka arrimaha gudaha arrimo inuu kugu saxiixay to meelo kale waxa la inuu kugu saxiixay waxa la waxaad qaadanaysaan inaad u hoos fariisataan dawladda la inii saxiixay caalamku waa in la socdo waa la og السلام عليكم adinka madaxdiina afka ka sheegta waxaad tihiin faysal cali waraaban waxba qarin oo la yiraahdo siyaasiga daacadda ah aynu ku jira marka walaalayaal aan dawladda kamid ahaado dhinaciina nabadda ka qaada calanka buluuga aan wada haddaba aan wax ku wada qaadanaaye mu dhiibnaaho adduunkan uga qaybnahay aan asaga ku wada noolaano والسلام عليكم أحمد وكادي فكر كذا هذا الشيء فنانته waxa ay tiri iyadoo fanaanidan ku hayna afkeeda anigu waxaan aaminsanay calanka buluuga hadaba anagu hadaan nahay Soomaaliland anagu calankayga waan aaminsanay qaran buu leeyahay fanaaniin buu leeyahay heesuu leeyahay sidaad calankaaga u aaminsantay ee u kalsano ayaa anaguna kaaga u aaminsanay waa laakiin sida calankaygu kaaga sareeyaan fanaaniintan uga sareeya ogow وبحي على كذا أنا مركز رأيي كذا ما سرّيه سومالان إلهي مو وحتى معمول مالي شو قيمة أنا وهرجيسة أنا كوشاقو فانكو ماشي قيمة أنا وهرجيسة كوشاقو سومالي أفرتن laba boqol oo walaalahay yeysan maartay haruub caano loo ogol yeysan iska daadin walaalahay aqoonsi wax la yiraahdo ma jiraayo dal markuu kala go'aa sharuuduhu ku kala go'ay laheen mid kamid ma buuxin karaan Soomaaliland markaan daacad u hadlayno hadii aan dhinaca aqoonta higsano dal markuu kala go'aa wuxuu ku kala go'i karaa saddex sharuud inay dadkii kala jinsiyadii kala qoomiyad yihiin inay kala diin yihiin inay kala af yihiin intaba waan wadaagnaa oo mid aan ku kala duwanahay iyo dhaqanka iyo diinta iyo afka midnaba ma jiraan marka waan go'aynaa macnaha haday riya laguma go'ay wax cad laakiin kala fikir baynu nahay laakiin walaalaan nahay ugu walaalo kala fikir duwanaan nahay maya walaaltinimada iyo waxaan jubadani berigii hore haysaniyo hadda way iga dhamaatay maanta inaan anigu keligi taago meel istaago ayaan rabaa walaal adoo mahadsan waxaad ogaataa inaad maantana Soomaali وين أرين آدي أضو في عن كل إن سعيد حرير حاجة خاطر كحمر مله داهر على سؤالك ما مخلصة أنا قاعد قدومي حلو كشارف سمالا قارة يوروب وحن دمان آدي أضو سلام يا والله الله يقول الصوماليات دورنا يقال قيب قلي وبحنا في وافن أنا آدي أضو يسيو سيدو كده وحن سلام يا حسن قدوميها يا رمها دنيرة talada Soomaaliya cid haysa aad iyo aad baan salaamayaa
sidoo kale waxaan salaamayaa aqoon-yahanada reer somaliland ka socda sida liibaan jaabiro gudoomiyaha balweynta arab xasan askaro jooga dalka jarmalka axmed cado siciid xariir gudoomiye ku-xigeenkii hore ururka anfac daakir aftooga dalka jarmalka haddaanu nahay reer somaliland caawa dooda aad baan u jecel lahay inaan ka qayb qaadano waaga cusub uu ka yahay tafatire daahir calis oo ah nin adduunka laga yaqaano waxaan leenahay haddaan reer somaliland nahay soomaaliya qadiyadeedu waxay tahay waxaan tirsanaynaa dhibaato fara badan duqaymo fara badan cadaalad darro boqol markii somaliland ay qaadatay ictiraafka waxaan la bahownay walaalahayga soomaaliya waxaan ka weynay cadaalad walaalnimo isku kalsoonaan maanta haddaan nahay reer somaliland waxaanu jecel lahay inaanu gooni goono ma jeclin isqabsiga shirkii ka dhacay dalkana dhan waanu qaadacnay kan imika biljabka ka dhacay waanu qaadacnay waxaanu leenahay walaalayaal anigoo jecel fanaanada ubaxnacfi iyo dhammaan dhalinyarta madaxda ah ee ka socota dowladda soomaaliya war ilma adeerayaal maanta aynu noqono sida soomaaliya somaliland sida jabuuti somaliland sida kilirka shanaad iyo kilarada kenya anigoo yuusuf yuusuf kalesa waan ka baxay somaliland waa 13 gobol weeye min sool ilaa laascano waa gobolka burco togdheer somaliland waa gobolka gobollo fara badan hargeysa waqooyi galbeed awdal boorama saaxil berbera daahir qadku waa iga yara culus yaan u malaynayaa codkooga go-ayaa laakiin haddaa muuqdaan aniga ma aaminsani in aniga ma aaminsani gobollo badan in somaliland hadda maamulka sheeganaya inuu gobollo badan haysto dee awdal iyo laascaano dada sheeganaysidna midna adiga ma lihid awdalna dee waxa awdal sheeda ku kaliya baan leeyahay boorama waxbana boorama yaan meesha la keenin laascaanoodna waa dee dad yar oo shacab oo yaroo maskaxdooda la qalda weeyaan intaasina waa iska soo hagaagaysaa laascaanood dee waa la garanayaa meeshay ka tirsan tahay ama gobolka sool waa la garanayaa meeshay ka tirsan tahay teeda kale waxaa leedahay walaalo waxaad tirsanaysaa cugdado 91 ama ilaa 90 duqaymaha ka sheekeynaysaa dee colaada sokeeye markay timi qabiilba qabiil buu ku dhacay soomaaliya intii kale waa laysu soo noqday soomaaliya mid qura weeye balse cugdada aniga waxaan cugdada keentay in soomaaliya waxaanu siinaa been bay sheegaysaa somaliland ictiraaf bay haysataa goonaan u baxnay faatimo waxay sheegaysaa waxa weeye cankamud weeye faatimay eeg somaliland diyaar waxaan u nahay telefoonka markaaga qaado please soo sanaag cayn wax la yidhaha ma jirto waxa weeye waxa nala jooga saleebaan xagla toosiye waxa nala jooga xaabsade waxa jooga fuad maryale gabadha waxaan leenahay u kaadi baan leenahay aamus baan leenahay adiga ay dhageyso sool sanaag iyo cayn ma jirto haddaa tir wax somaliland iyo hargeysa la yidhaahdana ma jirto biliis hadalka aamus aan hadalka dhamaysto markaaga qaado ay rahayn taa laguma heshiinaya walaal doonayno ma soconayso aad iyo aad inuu heeday dadku waxa marka adduunka wax la qiimeynayo de marka adduun weynaha marka wax la qiimeynayo waxa la eega majority minority shacbiga deegaanada surta waa deegaanada Somaliland
dadka deegaanada waa dad reer Soomaaliland ku abtirsado sida caamka loo ogyahay 60kii horteedna Soomaaliya laba dawladood ah Soomaaliya Italian iyo Soomaali British protected baa jirta xuduudkuna waa ka caalamiga ah ee adduunka oo dhan uu ogsoon yahay markaad yani fikirkii yani dambeeye ee qabaliyada ku dhistan يعني reer buu daba fadhiisanaya waxa waa laga tagay Soomaaliland heerka way dhaaftay maanta waa food for man bay maraysaa waa in islaam horta dhamaan bulshada meesha ku doodaysa dhan kasta wax ka soo jeeda Soomaaliya oo Soomaaliyaan u aqoonsanahay bulshada maamulka Soomaaliland gooniyaan u salaamaya ummadda Soomaaliyeedna horta dib badan waa la soo wada maray Soomaaliland dib bay tabanaysaa laakiin ilaa ay hadda dadka dibka wali ku jira ayaguba way joogaan wali Soomaaliya way raan u maleemayeen dhibaato ay Soomaaliland nooga carartay inay aragtay aniga inkastoo anigu dadka qabtii ka dambe aan ahay dadka aqliyeystay dadka ila doodayeen inay ila mid yihiin aan aaminsanahay taariikhda wax lagu kala tago markii dadkii hore ay ka sheekeeyaan wax Soomaaliland ay dawladnimo ay ku sheegato ama ay tira Soomaaliyan uga tagayna kulli iima muuqato laakiin qof walba aragtidiis inay isku tayaan haday gaaraan naharkan haday gaari doonaan waan ku soo dhaweynina wax walba iyagu hadda inay tagi doonaan Soomaaliland Soomaaliya ay dawlad gooniye noqon doonto habeenna kuma riyoon mana u maleeyo inaysan naga cararin inaysan dhibaato nagu beerin inaysan cadiifad nagu beerin inay Soomaaliya aysan kala qaybin waxaan suurtagelayna inay sameeyaan anigu ma jeceliyo waan ku maqlayaa inaadan si fiican aye horta bismillaahi raxmaani raxiim daahirow kelmadaad ka dhawaajisay haddaan dib ugu noqday dhalinyartaa soo tahriibaysa ama wadankii Hargeysa ama Somaliland ka imanaysa ma sababo maaha sababo wadan nacayb ay u soo tahriibayaan maaha waa sababo dhalinyar ama meel higsanaysa ama Yurub jacayl ay ka tahay waxaan ku sheegayaa Somaliland in aanay marnaba horta aanay xasiloonaan ka jirin ay nabadeedii dhowr iyo 20 sano ay si fiican uga jirtay midda kale anagu waanu tashanay oo Somaliland hadaan nahay sababtaanu Soomaaliya uga go'nay waxa weeyaan anagu waxaanu qabanaynaa cadaalad darro iyo waxyaabo badan oo aanay dadku ogeyn oo anagu ognay sababtoo ah Soomaaliya horta iyadu teeda markay soo hagaajiso ta kale ee ummadda kale waxa ka tiraado waxaana leeyahay Soomaaliya daahir cali soo hal mid aan ku darsaday markasta Somaliland waxay tiraahdaa hal maraan wax ku darsa markasta madad maamulka Somaliland walaalaha reer waqooyi markasta waxay dhahaan Soomaaliya ma dagayso horta adigu ku soo hagaajiyo horta Muqdisho waxaysan ku dagaynin ama koonfurtu ku dagi karin ma aha meel hal qabiil dago ama meel istaqaanaba ma aha meesha istaqaana dagi karta hadda Muqdisho waa UK oo kala dadaan isku qabiil ahayn ama dadaan shaqo isku lahayn wada daga laakiin waxa meesha sheega ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyadoo isku mid ah oo waxa fiican oo cadaalad ummadda Soomaaliyeed oo la kala fogeynin inaan Soomaaliya laba u qaybsameyn cid walba way og tahay oo Soomaaliya aysan laba dawladood isgarab yaal aysan noqonin cid kasta laakiin waxa fiican
in Soomaaliya ay wada ay ku wada heshiyaan halka dawladda hadda waxaan la hadlay dhageysta halay maqlo waxaan ku leeyahay marka hore Soomaaliya ma aqoonsanayn Soomaaliland marka hore ku biirtay marka hore waa idin iman anagaadii imano inta ku darsanay taageerta marka hore loo qabtaan waa in dadka doodda ma aha qof jaaniskiisa inuu daahir cali halay maqlo marka hore inaan idin imanay horta taa anaga gataan ayaan ku biirnay aan Soomaaliya anagu ku biirnay imanay anagana jeclaan shanti Soomaaliyeed isku keenad arinkaygu ahaa tiina way khashbantay halkaas aniga uga jawaaba shanti Soomaali way khashbantay wada meel degtay marka hore ma aqoonsatay in anigu ku iman kugu darsaday oo walaalahayga koonfureed aan ku darsado shanta Soomaali ka sidaan ay isku imaadaan maya laakiin waxay maanta raadkan anigana laga daba guraya ilaa markii hore anaga idin imanay maantana anaga diinay oo gooli sidii ku noqonayna sababta loogu dhagay Soomaaliland maxay tahay marka hore inaad goortayna horta aamusa markii runtu inay ka daba dimaato doodaad badidaan ma ogtahay ma ahan inaad wada ma ina runtu aqoonsatay Soomaaliland marka hore inaad u kaadi Xasan waxa tahay fanaanad baad وبحنعفي هيساها قام بقيسنا واقع عصبان كلا سين ماينو وبحي واحد فنان الخالية أدوك كما يقانو واقع عصبان كلا قيسني dadkaaga maqal cabasha jirta waxaan ku leenahay ubaxay ku sagaa boqol ragii Soomaaliland iyo Soomaaliya kala ahayn hadaan ahay Soomaaliland ma toon siraya sidana yahay basana yeelin sirayo waa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Sirayo waa madaxweynahayga anaga jecel anaga tagar Soomaaliya waxa warna amaagii oo daaya دار علسو ومارتين والله maamulka reer Somaliland anoo ku hadlayo magaca Soomaali weyn lamarkii horta waxaan u sheegaa dhaliilo yar yar oo la sheegtaa oo wax yar oo maartay walaalaha weyn is qabtaan way kala caroodaan weyn isku soo noqdaan walaalaha waana carooneynaa oo maartay qanjirooftina la qanjirooftay ama horta dhan walba xukuumadihii dalka Soomaaliya qaasatan xukuumadii militariga xukunka dheer dalkeena haysatay cid waliba darbaxshinta way gaarsiisay haddana wax maartay aan leenahay dad qaas ay ugu sii darnaatay ma jiraan walaalaha dib way tirsan karaan laakiin ha ogaadaana midaan oo walaalkay kula soo orda magaciisa yarka hadda ma hela dhahay cadaalad darran tirsanayna iyo annaga idin nimid dhahay markuu noo imaanay shalay waxaan isku ahayn aan maanta isku nahay horta number 1 taas xasuusnaada number 2 number 2 aan ka dhax kalo Cabdilaahi Cabdi aan ka dhax kalo waxa weeye Somaliland iyo Soomaaliya waxa weeye maanta way kala go'an faqriga u dhaxeeya waxa weeye Somaliland maanta ardayda Soomaaliya joogtay Somaliland ayay jaamacadda Somaliland bay dhigtaan waxa weeye Somaliland maanta horumarkay ku talaabsatay waad arkaysaa waxa weeye ha kama sugina biya caleed Soomaaliya yani kama sugin Somaliland maanta horumarka ay gaadhay waad arkaysaa adduunyadu maanta wuu arkayaa ku sheegaya Somaliland waxyaabay xilligii aan ugu soo darsanay Soomaaliya Somaliland Somaliland diyaarad ka kacaysa lama arag diyaarad ka kacaysa oo dalkii ay ka kacday rusheynaysa waxa weeye waxyaabaha qaladka ah Soomaaliya aan ka tirsanayna waxa weeye dhibaato badan baan ka tirsanayna waxa weeye maanta horumar baan gaadhnay waxa weeye Somaliland maanta horumar la taaban karo ayay gaadhay waxa weeye Soomaaliya xaadirka 2013 ay ku jirto waa la ogtahay waxa weeye Soomaaliya ha aqoonsato Somaliland ayaa anigu leeyahay arrinkaas lama hayso ninkan dadka daahir calasow hal su'aal aan rabaa inaan weydiiyo hal su'aal aan rabaa kaliya ogolaa jaani waxa hadlaya liibaan jaamir hala dhageysto hal madaxweynaha maamulka Somaliland Maxamed Axmed Siilaanyo wuxuu ahaan jiray wasiir Soomaaliyeed ayuu ahaan jiray haddana waxa waaye
madaxweynaha maamulka Somaliland way shala sidoo wasiir Soomaaliya u ahaan jiray ayuu maantana u yahay mas'uul Soomaaliyeed oo maamulka Somaliland madaxweyne u ah horta taas oo hana kala Somaliland iyo Soomaaliya maanta farq weyn baa u dhaxaya waana la kala baxay maanta wuxuu madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ka yahay jamhuuriyadda Somaliland ayuu maanta madaxweyne ka yahay waxa weeye Somaliland inta maanta ka tirsan hadday laascaano tahay hadday awal tahay way ku jiraan maanta Somaliland xililna way ka hayaan Somaliland maanta waa loo dhan yahay Somaliland maanta waxaan leeyahay Somaliland Soomaaliya waxaan leeyahay caasifada aad wadaan adoo mahadsan walaalkii ka soo dhamo warka ka soo dhamo warkaan kala maqalna adoo mahadsan Axmed yar xirmaaga asrigiisana walaalan doodka kaliya saarnaan waxa way qofka bini aadamka dadka dhageysta hadda waxaan dhageysanaynaa u dhiibanaa mikrofoonka Xasan Askar oo kamid ah dhalinyarada Somaliland ee joogtada Xasan way waxa ka dibaataan cadaalad u qeexay idinnimadana Soomaaliya ma inankan tadasiba faadumay qanaan qalbal wada adoo Somaliland أحمد عارو كادي ما هو على أركي ما يمرضى تنسوا شيء تاري على سمر بان شيء ما هو على واي ما يكون عن جهاني الناس سوماليا ما يكون عن جهاني ما هو يكون ما يكون عن جهاني هرمك ما في سوماليا هاي سما وما هي ماتا وحوي ماتا تمر كوجي كنا وأمسون ماتا أي تمتكيون صوت تمر كوجي وأنا كنا ماتا حسابي أو كراس سلنا عيسى كنا ماتا Somaliland maanta horumarkii taadin waxaan arkaynaa muqdisho lagaga taliya ama bood ama dhac muqdisho lagaga taliya adoo reer Hargeysa قربتشوغ سوماليا معاي سوماليا أنا وتجا مركز أمريكا كادو معاي شو تجا باي أنت أنت سوماليا نبض سوماليا Somaliland سماها مقالة كمية هرجيسة تشيني سين هذا هرجيسة ومقالة كمية مقدشو هي هرجيسة يدروا يلعب عارض ويا كل شيء حاجة مكر وداوة هاي أصلا صوماليا وتجيها صوماليا ده هرجيسة جوال ما معنا وتوقفوا رجليا هل أحمد كادي مايا أنا واحد شيء يا أبا معفي وعن كذا عاطفة إنسان على عاطفة هاي أنا كنت مرضى هاي على سعانات هو هم هي ما تملا مايا أكيد هذا علي بيورطها وأنا أقول أكيد هذا علي بيورطها وحوي وحيامان ما أقول عندي كاملة لكن وقتما وحوي أنت qof Soomaaliyeed walaalkii su'aalaha ugu dhigay Somaliland ما أنت لسنا بربوديكو عادي نقرب انا هبلو على سوق فاطمه عيب عليك هنا بطلع العاي عيب عليك ما تقدر تسعي كبدو ماشي دودي ما طالع عين سعي معين طاهر وبحنا نعرف
waxaan la hadlayaa faadimo waxaanu aad iyo aad uga xunnahay in lays dhegeystaanu jecel lahay waxaan hadda kusoo dhaweynayaa ubax fanaanada qaaliga ubax nacfi anagoo aamusana walaalukaadi annagaa wadaa yaad wadaa soomaaliya doonsa inay wadaan somaliland baa علي سواديك قالت dadka kala saaro hadalka qaybi daahir qof walba waqti kooban si daahir qof walba waqti kooban si billahi عليك 5 daqiiqo 3 daqiiqo 4 daqiiqo waqtigaan gogoosana walaal gacali ninkan hal su'aal ninkan dhahayo waana la duqeeyay diyaaradana duqeysay 4 abaara ba'ana wuxuu ka dhacay gobolada waqooyi gobolada dhexe waliba gobolada waqooyi abaar aad u ba'ana ka dhacday dadkii diyaaradaha ay ka gureen 400,000 ay dawladda Maxamed Siyaad Barre badbaadisay 400,000 markay badbaadisay laba xabadood oo diyaarado tuurtay 100 qofood ama 50 qofood ay dishay ama 200 qofood ay dishay in la sheegaa ma xaqba ma waana la arkaynin badbaadada dawladda badbaadada qaran ay sameysay oo in ka badan 500,000 oo shacabkeediya tog dheer dadka ku baaba'ay intay qaaday inay ku beerto gobolada Jubbooyinka su'aashaas oo leeyahay waana la duqeeyay iyo waxbaana loo geystay war cadiifadaas ha laga kaalayo dadka way isqabtaan wayna isku dhacaan wayna in adeero horta mid baan u sheegaya ninkan haddii isagu u haystay inay 500 oo qof ku dhintay inta ka dhacday Hargeysa iyo Burco in adeer inta aad sheegtay sagaalaabkeed baa ku dhinto alaanka la soo qofaayeen walaala positive ka fiiri dhinaca positive ka fiiri brother 500 mid kale ku sheegaya naxal waxyaalaha aynaan gaabkeen aanu isugu buuxsamayba waxa kamid ah taqaanaa taageero ayaa badu haysaa dawladii rejiimka hay ilaahay wadankaana yani masiibadii ka dhacday oo dhan uu sababta u ahay ka soo gudub waqtigan xaadirka hadii tacaawunaad wanaag Soomaalida noogu jirta markii abaaruhu imika waqtigii ugu dambeeyay ka dhaceen Muqdisho dawada goodaha Hargeysa oo tacaawunada laga geenayay inaan naxli iyo xumaan inoo jirin maya ha oran ha sheegin anaga naxli iyo xumaan faro laguma jirto kaliya anaga mustaqbalkeygii go'aan ka gaarnay qabnana diyaaradaha gureen ma aragti dadka diyaarada disho adiga arkaa dadka diyaaradaha gureen ma aragti adigu maxaad u arki weyday markii adiga halkan tan lagaga tacaawunada Hargeysa lagaga sameeyay maxaad u arki laadahay waxaad dhaqaalakiisana wax kooban oo la yaqaan way intaas ka badan ama maalin kasta bilaaadmigi marka maya qofka bilaaadmiga lagu ma qoonsado mustaqbalkiisa reer Soomaaliland maanta iyaga ayahoodii ka tashaday 7% dastuur ah bay codeeyeen inay gooni isu taagaan si fiican haye maya adigaan alla ku tusayna beelaha kaleba faashiinkoodii iyo gaabkii ay ku lahaayeen dawladda way ku leeyihiin xilal muhiim oo muuqda ayaa bay leeyihiin balse waxa Soomaaliland tobaska loo saaray lagu mashquulaya maxaa tan intii dawladdii dhexe Soomaaliya burburtay in allaali intii madaxweynayaal ku meel gaar Soomaaliya soo maray hal reer bay noqdeen hal in marka laga reebo cadaaladda aad ka dhaxeeyay Soomaaliland maxaad uga eegay maya meer ma Soomaaliland waa shacab waa dad sutri waa min sayr Soomaaliland وحال قبيل وميل دقن حال قبيل نقرن ما مثلي كرا برا الصومالي ku faylano anu waxaan dhihi walaalay wax kala qaybsadaan aysan naga caroonin hadda xilka ay hadda hayaan waxaan qabaa iyo mid ka sii haboon waa loo ogol yahay walaalay aysan maaratay haruub caano loo ogol yahay aysan iska daadin walaalay aqoonsi wax la yiraahdo ma jiraayo dal markuu kala go'aa sharuuduhu ku kala go'ay laheen mid kamid ah ma buuxin karaan Soomaaliland markaan daacad u hadlayno hadii aan dhinaca aqoonta higsano ee dal markuu kala go'aa wuxuu ku kala go'ay karaa saddex sharuud inay dadkii kala jinsiyad iyo kala qoomiyad yihiin inay kala diin yihiin
yihiin inay kala af yihiin intaba waan wadaagnaa oo mid aan ku kala duwannahay iyo dhaqanka iyo diinta iyo afka midnaba ma jiraan marka waan go'aynaa macnaha hadday riya laguma go'ee wax cad laakiin kala fikir baynu nahay kala fikir baynu nahay laakiin walaalaan nahay ogow walaalo kala fikir duwanaan nahay maya walaaltinimada iyo waxaan jubbadani berigii hore haysaniyo hadda way iga dhamaatay maanta inaan anigu keligii taago meel istaago ayaan rabaa adoo mahadsan waxaad ogaataa inaad maantana Soomaali tahay birina Soomaali ahaan doonto weligaana Soomaali ahay taas ogow magaalada magacayga waxaa looga taliyaa ilaa Boorame si kala ha u fikirin Somaliland waayo anigu Soomaali baan dhulkuna waa Soomaali waa dhulkii Soomaalidu ma ku sheekay meel fog ma jiro si fiican daahir aad baa u maastahay asalaamu calaykum dhammaantiin kasoo qaybgalayaasha waan idin salaamay barnaamijkan runtii qiimo gaara ayuu leeyahay runtii waana la dhacsana habka dooda iyo nidaamka asluubta leh oo aa ku wadaan anigu waxaa jira magacayga cabdiwahaab cawaale waxaan kasoo jeedaa koonfurta muqdisho waxaana deganahay hadda oo ku suganahay waddanka norway runtii waxaan taageersanahay qadiyadda somalilan gooni istaaga inay noqoto waddan gooni ah iyo calan gooni leh waxaana u sababa taas oo aan u sabab yeelayaa anaa horumarka ay ka gaareen dhan walba oo waxbarashadii amnigii siyaasadii dhaqaalihii soo marka sidaas daraaddeed macnaha laguma noqdo walaalka hadduu horumar gaaro waa lagu daydaa maahane cadow laguma noqdo marka waana ra'yigeyga intaas والله بالله Somaliland horumar waa gaarto wax la qari kara maysan ma ahan inay horumar gaareen dad nabad samaystay waaye dad dhibaatada iyo 22 sano aan dagaal sokeeye ka dhicin waaye waa walaaleen horumarkooda waa ku faraxsanahay waan u ognahay laakiin marnaba anigu ma jeclaan lahayn inay naga tagaan dhahan dawlad gooniyahan nahay ayagoo sidooda horumarkooda haysta inay naga mid ahaadaan maanta markoo meeshan dhib ka jiro shalay anigu Muqdisho markoo xabadu ka dhacaysa Hargeysa aan ku noolahay marka waxaan jeclaan lahaa in Soomaaliya aysan kala tagin qoloba markeeda ay ayaguna nabadana say u sameysteen annagana nagula taliyaan Soomaalida say shalay Soomaali u ahaayeen dawlad hal mid oo la aqoonsiyo aan u ahayn inaan wada ahaano ayaan jeclaan daayro waxay riisuga bow ana hadla daayro Cabdiwahaab iyo walaashay waxa u malaysaa inay mid seegeen siyaasadda Somaliland waxa u malaysaa inaysan wali si fiican ugu dhuundulin beel kamida beelaha dego Hargeysa oo la yiraahdo Arab ashari mahana daraad waxa ay cilaameynayeen jihaad ayagoo tabanaayo maartay suluuga umada ay xagal daaci ku sameeyay ayagoo tabanaayo marka horumarka la sameeyay ma in aad u aragtaan oo kaliya in oo maartay hal meel hal reer inay isku koobaan oo dalka dhan oo u taliyo nin la yiraahdo Axmed Maxamed Siilaan iyo xirsi inay u taliyaan dalka oo beelihii kalena la qadiyo wada cabanayeen ma taas horumar u taqaan walaalkii Cabdiwahaab iyo walaashay taas ay nagu faakiin ka hadlayna waa Soomaaliya أنا كجوابي ضد أنا كجوابي ما أنت رود مع حسن داير هويس وأنا باش هوية كميلة وأنا أرجع عسى وأنا كاربيك لا دوسي وأنا سنلو سودوي تاس عدد تامان وركي باش أنا ربنا يوي حباي تمانية ساعة وقضية سومالا وقولي عرب كاس وقيب لحالك dadkii ka ismaha ka qayb qaatay Soomaaliland way waraga wadi waa beeshii ugu horeysay hubkeeda wareegtay inay yani nabadgelyada ku ciyaartana wax looga fadhiyo ma aha laakiin se doodii inaga qaloocan Soomaaliland bin doodii nidaam qaade beesha way ka soo bidikada Soomaaliland qaray وسلام وانا مرنا ان عدك ويراسين نقون كرو marka raalaha waan ku faraxsanahay dood qaybkan laakiin qaabka san qofkiisa waxa ku doonaan qaba gaar ah u go'o hal aqoontada iyo Somaliland iyo Soomaaliya inta waxa anaga naga go'o inteena keen uu gaari karma waxa la haboon oo aqliga qofka wanaagsan ama qofka wax yaqaan dadka lagu dhigaa warna Soomaaliland qiime yani على سوق
daahir yaqaano waa oo dad walaal u aad wanaagsan oo qof kaliba hadiisa sharaftiisa Soomaaliland ninkan walaalkay hadda yiri macnaha hargeysa wax badan kalama socdo runtii waa ka xumay walaalkay laakiin wuu ku maatay fikirkiisa anigu hargeysa sanadooyin badan aan ku noolaa oo runtii macnaha wax badan maanta waa ka sheegi karaa way jiraan maamul xumo Afrika dhanay ka jirtaa iyo meel kasta war maamul xumada dawladda Siiraayo leeynooma dirtana Soomaaliland waxa ay ugala soo horjeedaan go'aanistaageeda su'aasha meesha taala weeyaan mid baan idin sheegayaa ما aragtaa wanaagga iyo shacabka walaalaheena Soomaalida Itoobiya intii ugu yareeyay ay maamulkooda dambaysteen waa aragtaan Djibouti sida ku nooshahay waa aragtaan yani Soomaaliland sida ku nooshahay waan anagu koonfureed ilaahay waxaan uga baryaynaa masiibada haysta inuu ka dulqaado oo wadan barwaaqa oo nabad uu ka dhigo kaliya laakiinse waxaan idin leenahay war walaalayaal jacaltooyadii iyo wanaagga wuu inoo ku jira laakiin siyaasadda isku fahmi mayno qarankayagii waanu u tashanaynaa waxaanu jeclaan lahaa waxaa mid odhan lahaa madaxweynaha Soomaaliya Soomaaliland tagtay wataa ka qaadato midnimada ogolaatay bad intan aad haysaayeen ku dhaaf Jubaland baa kugu soo sbaxday Hiiraan intan xukumi kari laay ma hayno Soomaaliland qadiyada Soomaaliland ma laha daahir aad baan idin salaamayaa waxa fiican kuleeyahay goolma kala galgalinaysa waxaan salaamayaa garab socda Soomaaliland daahir u kaadi dumiya cod kor u qaad abo adoo mahadsan kor u qaad codkaada may maqalsan aad baan idin salaamayaa dhamaantiinba waxaan salaamayaa fanaanada qaaliga Ubax Nacfi runtii aan jeclahay heesaheeda oona ku jeclahay Soomaalinimo laakiin ku jeclahay haddaan reer Soomaaliland fanaan qaran ma tahay daahir cali sawd oo ay fatiraha waaga cusub taageero badan ka haysta reer Soomaaliland haddaan u soo noqdo hadalkayga daahir oo Soomaaliland Soomaaliya 1960 kii baan kala go'ay xad iyo xuduud iyo dhaqan iyo diin ayaa naga dhaxaysa walaalahayga reer Soomaaliya waxaan leenahay walaalayaal ilmaada reer Djibouti meeday Ethiopia meeday kilkii shiraalmee saddexdaasi halka mareen baan maraynaa anagu haddaan reer Soomaaliland doorashooyin baa dhacay golaha deegaanka baarlamaanka madaxnimada doorashooyinka guurtiga anagu haddaan reer Soomaaliland marleyba lagama yaabo intuu naga nool yahay inaan sida liibaan Jambira la wiilata jiri inaan weliga ku soo birno Soomaaliya Ubax Nacfi waxaad ku dhiman oo ka daayib Ubax Nacfi waxaad ku dhiman doontaa adigoo leh waxaan ay fanaanad Soomaaliyeed laakiin waxaad tahay fanaanad Somaliland iyo Soomaaliya u dhaxaysa daahir hadalka waan kaaga baxaya haddaan reer Somaliland nahay waxaanu aaminsanahay qarannimadeeda doonistaageega dowladda Somaliland waxaanu aaminsanahay madaxweynahayga Somaliland Axmed Maxamed Siiraayo waana ka baxay okay